madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta isaga gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxay si wada jir ah maanta xarig uga jareen wadooyin dib u lagu sameeyay wadooyinkan oo markii hore ay dadka shacabka ah adeegsigooda ay ku dib qabeen ayaa waxa dayactirka ku sameeyay maamulka gobolka Banaadir labada wado ee maanta xariga sida wada jirka ah uga jareen madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku kala yaala degmooyinka Shingaani iyo Cabdicasiis ee gobolka Banaadir madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku hormaray wadada ku taala degmada Shingaani ee maanta xariga laga jaray kadib dib u dhis lagu sameeyay madaxweyne Farmaajo ayaana wadada ugu magac daray Allah u naxariistay Abwaan Cabdullaahi Sultaan Timcade inta kadib madaxweynaha ayaa u gudbay wadada ku taala degmada Cabdicasiis gaar ahaan wadada hormarta xeebta Liida Sultaan Timcade Cabdullaahi Sultaan Timcade oo haliyay Soomaaliyeed oo aan ka xasuusanay tixdiisii gabayga ahayd uu jiriyay oo ahayd sareeyo manus qaamo bal sidoo yahay aan eegne kana saa runtii taasna waxay ahayd wax soo jiidatay shucuurta iyo dareenka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan saldhigna u ahayd qof walba oo Soomaali ah inuu runtii wadanidiisa shucuurtiisa soo bandhigo oo soo saaro maanta runtii sharaf weyn ayay kulligeena wada tahay inaan xasuusanay runtii wadanigaas oo jidkaan oo runtii halboolaha dalka ku yaala magaalada Muqdisho ku yaala aan u bixinay gudoomiye waa mahadsantahay dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa isna dhankiisa waxa ka warbixiyay wadooyinkan laga jaray xariga maanta kadib dib u dhis lagu sameeyay sidii ahaayeen ka hor inta aan dib u dhiska lagu sameyn waxa aad ugu faraxsanahay maanta in madaxweynuhu uu xariga ka jaro laba wado oo muhiim iyo halbowlo u ah caasimadda dalka oo ah wadadan Liida hadda joogno iyo wadadii Shingaani hadda uu madaxweynuhu isagana xariga ka soo jaray oo loo bixiyay Sultaan Cabdullaahi Sultaan Timcade oo runtii maalmaha xorriyadda madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu gartay in haliyeyda iyo dadkii muwaadiniintii Soomaaliyeed ee lagu xasuusan lahaa maalmaha xorriyadda taariikh loo sameeyo marka wadadaas oo Shingaani hadda waxa loo bixiyay Abwaan Cabdullaahi Sultaan Timcade aragtidaas dheer madaxweynahana aad iyo aad uga mahadcelinaynaa sidoo kale wadadan Liido oo halbowleeyadana waa ahayd bulshada in laami laga dhigo waxay ka mid ahayd wadooyinkii sagaalka laami ee aan hirgelinay muddadii sanadkii barka aan maamulka gobolka joognay sidoo kale wadada Shingaanina waxay ahayd wado bajaaj leeyda runtii isku xirta degmada Cabdicasiis iyo Kaaraan iyo dhinaca waqooyi iyo dhinaca koonfurba iyadana in dib weyn lagu qabay wadadaas oo haddana aad uga mahadcelinayno bajaajleydii iyo baabuurta dadweynahana ay maanta si wanaagsan u soo marayaan xariga jarista wadooyinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho ay yihiin kuwa burbursan halka kuwa kalena dhagaxaan lagu jaray oo gaadiidka dadweynaha gaar ahaan bi'alka aysan isticmaali karin sidoo kale waxaa jira wadooyin qaar oo dib u dhis lagu sameeyay balse mar kale iyagana u burburay oo gaadiidka iyo shacabka ay ku dib qabaan maristooda